wada nool yahay insha allahu tacaala mugdigeena soo marayna aanu diiradda ku iftiimin oonu dib dambe ugu noqonin dhiig soomaaliyeed oo daadanaya waa hagaag waxaan jecelahay markaan inaan idiin furno khadka teleefanada insha allahu tacaala waxaad kaloo nagala soo xiriiri kartaan shaashada twitterka ku qoran iyo weliba a.xafiid emailkay ku taalo fikradihiina kusoo gudbin doontaan call centerkeena ayaa idiin furan waxaanu idiin furnay 14 line baan idiin furnay oo si saaniya isku mar hawada usoo wadagelaya waxaan idinka codsanayaa in intaad khadka teleefonka soo gashaan caawo dhan halow iyo ma ismaqashaa aanan isku oranin because ma doonayo haba yaraatee waqti inuu iga lumo haddaan halow ku nidhaahno oo aadna maqli weydid waanu kaa gudbaynaa sababtuna waxay tahay call centerka dad badan baanu fariisanay si qof kasta teleefonka loogaga qabto loona soo gudbiyo u ogaado inuu hawada ku jiro juhdi badan baan ku bixinay halow ma imaqashaa 7 sano TV-ga uu furnaa indhihii baa nagu casaaday annaguna aan idinka xishoono idinkuna naga xishooda khayr allah idin siiya haddii aad al-shabaab taageero tahay ama fikrigooda aad maxay tahay niyadaadu ay ku qabowdahay magacaaga ma rabna inaan ogaano meesha ka soo wacaysid fikrigaaga noo sheeg iyo waxaad xal waliba adigu u aragtid haddaba qofka u horeeya khadka teleefonka assalaamu calaykum waraxmatullah halo may maqashaa hawla assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سودو ولل والله ودوه جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم أديك يا شيخ محمد إدريس واكو سلام وين السلام ونكاقا من عمي وعليكم السلام مقع ما دون سنة لو شكتي والله عبد الرحمن أهلا وسهلا سيدي والله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم وحن لي هاي برنامج كان آد بومي وناكسن هاي وان لو باهي هاي إن مر بلقفته لون سؤال عليه برنامج كان وحوها برنامج مرة لو باهنا marka sheekh maxamed idriis iyo culimada dhamaanteed waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala ha xafdiyo culimadu waa culimadii dadkan dhibka iyo dhibaatada ku jira ay ka bixin lahayd marka culimada waxaan ka codsanayaa inay ummadda u bayaaniyaan oo diinta xaqda ah ay u sheegaan dadka dilkan iyo dhibaatada hadda Soomaaliya ku dhacdayna inay u sheegaan inay fitan tahay cabdiraxmaan culimadu waxay wada sheegeen isku raaceen sheekh maxamed idriisna hadda wali nala joogo inaysan dadaalkoodu yareyn geed dheer iyo geed gaaban ay u fureen hawshaana ay walin doonaan walowba waa soo sheekh maxamed idriis hadalka u dhigay mararka qaarkood ay nusqaanu jirto duruufo jira awgeed marka maxay kaloo qaban karaan baan isleedahay intaa ka badan walaal horta culimadu way dadaashay intay dadaali kareen waxay qaban kareen way qabteen annagoo garanayna wadciga ka jira wadankeena Soomaaliya ayadoo ay yartahay fursaduna aad u yartahay marka waxaan leeyahay still chance bay haystaan haddana wadankii nabad buu soo noqonaya waxaan culimada ku dhiirigelinayaa dadka leynahaya oo ama shabaab ha ahaadeen ama koox kale ha ahaadeen siday xiriir ula sameyn lahaayeen ama bayaan ay inta soo saaraan bayaankaas u diraan oo qoraal ugu diraan ama si kale oo kula xiriir kala intay isku dayaan oo culimada isku duuban inay kula xiriiraan oo dhahaan walaalayaalow maantay dan nooba aha inaan culimadeeni iyo dadkeena waxgaradka ahaa oo waxgaradka wadanka wax u tari lahaa ama aqoon-yahanadii ama ardaydii ama dadkii shacabka ahaayo dalka wax u qaban lahaa oo diinta u nusray lahaa oo wax kas dadka jahliga ka saar lahaa inaan iska leyno dan nooma ahan waa inaan maantay miiska wada hadalka wada fariisana oo wixii naga qaldan oo aan isku hayno waa inaan miiska wada hadalka ku wada doonna marka cabdiraxmaan waxaad leedahay xabadda naga dhiga walaalaanu nahay caruurteennii baa tihiin aanu is hor fariisano wada hadal ku dhamaysano waa sidaas khayr badan allah ku siiyo cabdiraxmaan culimadan waxaan leeyahay inay isku duubni muujiyaan oo dhammaantood meel kasta ay joogaan hadday dalkii joogaan iyo hadday dibadda joogaan iyo hadday meel kale joogaan inay culimadu mar walba iska warqabto oo isku duubnaada waayo midnimo gacmo jir bay wax ku gooyaan aad baad u mahadsan tahay halkaasaan kugu joojinayaa gacmadoo jir bay wax ku gooyaan wactasimuu bixablillahi jamiican walaa tafaraquu qof kale ku xiga asalaamu calaykum mahadsanid cabdiraxmaan dhinaca kale halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله سودو شيخ مقعه عبد الله أنا عبد الله سودو أنا محدوني سنة تراهدين ها waxaan rabaa inaan dhaho Cabdixafiid wad mahadsantihiin adiga iyo Sheekh Maxamed Idriis iyo culimada meesha ka soo qayb galay oo dhanba marka waxaan rabaa hal fikir inaan ku darsado waa run wiilka walaalkay iga horeeyay sidoo yiriba culimadu inay hal meel isku wada tagaan go'aan ay soo saaraan dawladda Soomaaliyeedna waxaan u oran lahaa sida
sheekh maxamed idriis hadda ka horna uu yidhi inay yacni dadkan diinta islaamka ku dhaqaan 100% sida reason aanan u helin al-shabaab fasaad baa wadanka ka socda waxana ka socda inay reason u keenin inay dawladuna ay ku dhaqanto diinta islaamka sharciga taas aanu fikir ahaan u soo jeedinaya codkaagu waxaad u codagtahay nin dhalinyaro ah dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya ayaa al-shabaab ka tirsan ama se dalkeena rabshado ka wada maxaad ugu baaqaysaa da'yarta Soomaaliyeed ee dalkii hooyay joogtay wallahi waxaan aan ugu baaqi lahaa aniga ahaan dadkan waxay naga rabaan inaan dacwad faafino oon cilmi barano oon diinta islaamka aan ku dhaqamno ma garatay marka meelana kuma arkaysid wax sida culimadu inay noo sheegeen in la dilo dad oo muslim walaalka oo aad inaad la rabtid waxaad wanaaga adigu rabtid inaad isagana la rabtid waaye ma garatay haddaad janno rabtid isagana janno inaad la rabtid ma fahamtay marka taasaan ugu baaqaya mush ma aha inay rabshado kiciyaan iyo the future-koodana iska hadlayaan insha allah marka waxaad leedahay addiinu lastaaxa صح سفيعا ما سنتهي صاحب خير الله كسيو خدك الصدحات بانو قدبناي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هلاو هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سودو ولا هذا وايد السلام دمانتين علماء iyo intina TV ka shaqeynaysa Universal هلا ما مقلسان أنا سيفي عملنا كوم مقلنا هذا ما عجبنا يقول درتنا ونكسرنا لهاي عشان ربنا ويدي أرتا وحواي قلدنا الشباب لداو ودن كواد دوليستين dadkiina damiirnimadii Soomaaliyeed way ka dhimatay waxa dhacda marmar meel publiga inuu inta nin bastoolo soo qaato wiil yar oo nin muhiim ah ama dhakhtar ama oday dhaqameed ah oo madaxa ka toogto oo dadkiina wada fiirinayaan oo aysan qof damiirkiisu siinay aysan jirin inuu ama qabto ama uu celiyo ama uu wax sameeyo marka waxaan Soomaalida kula tali lahay dadka Soomaaliya jooga siday u dhan yihiin haddii ay saasoo kala dhacdo in qofka ugu horeeyo kula lugaha ka jajabiyo ama uu qabto isku duuba ilaa naftan mar un bay go'aysaa inay isdifaacaan caradkooda sharaftooda maalkooda Soomaali meel kastoo joogta markaas al-shabaab waa la suuli karaa raalli ho walal suulintu ha noo dambayse ma jirtaa xal kale oo loola fariisan karo sidii walaalihiisa ka horreey soo jeesheen in lala hadlo lala fariisto ilaan waxaad leedahay hala zuuliyo waa dad Soomaaliyeed oo dhulka kula leh ciidda kula leh diintana kula wadaaga qalbigooda in la hanto la soo dhaweeyo bidaliili qowlihi ta'ala idfa' billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim suuratu Fussilat aayadda 34 waa ku gartay waxaad leedahay waa run waa dhalinyaro Soomaaliyeed niman gaangistara ayaa ka dambeeya oo gadaal u fadhiya waa in la isu indhatira maal la soo qabta nimanka ka dambeeya oo magacaaban oo la yaqaano oo ilmaha yarka soo maanduuriyo dhaay masaajid dugsi isbitaal inta tagtiin wax soo laay in la soo qabta malalaaya ra'yigaaga waa ku mahadsantahay khayr Allah ku siiyo aad baad u mahadsantahay waa hagaag dhinaca kale khadka telefoonka assalaamu calaykum waraxmatullah halo soo dhawow walal magaca soo dhawow magaca Faatmo maxaad doonaysaa inaad tiraahdo Faatmo السلام عليكم عبد الحفيظ عليكم السلام ورحمة الله وعليكم السلام انت كلكم ماشوي horta عبد الحفيظ culimada Soomaaliyeed oo la leenayo horta qof ku faraxsan ma jiro qof kasta waa ka xun yahay al-shabaabna waa wiilasheena aniga waxaan dhigaa culimadu intay qaataan mikrofoonyo hal hadleen nimanka al-shabaab la yiraahdo kulay taba guriga joogan hooyooyinkooda waa yaqaanaan naagay badan waa yaqaanaan walaalay leeyihiin inta lala hadlo culimada ha wacdido hal la yiraahdo war soo baxa waa dad muslimiin waa dad Soomaaliyeed inta la wacdiyo hal la yiraahdo soo baxa markaas waxa laga yaabaa inay miiska wada hadal ka yimaadaan oo sidii hore ay dhaamaan aad baad u mahadsantahay Sheekh Maxamed Idriis soo dhawaad alxamdulilah horta dadweynaha waa ku mahadsan yihiin waana ra'yiga saliimka sida uu keenayo caqliga saliimka ahi qofka
inaad wax weydiiso inaad tiraahdo maxaa dhibaato ka jirta in la wada hadlo horena culimmadu way isugu dayday sidii haddaaya baad ka arkayseen warkii sheekh bashiir uu inoo sheegay culimaa loo diray madaxda shabaab maaha dhalinyarada maaha waa madaxda shabaab iyo ragga odayaasha ka ah culimo waaweyn oo la fariisatay oo da iyo cilmi intaba u leh oo raggan hadda meesha ku jira sheekh bashiir iyo sheekh umal iyo ay ka mid yihiin wax lagama soo helin natiijo ah lagama gaarin taas macnaheedu ma aha in hadalka laga daalo malihi laakiin waxaan leeyahay meeshan waxaa jira qorshe madaxadayga oo hadaf leh oo meeshan inaan dowladina ka dhalan dalna degin nabadgelyana ka jirin qof allaale qofkii maaragtay arrinkaas kasoo horjeeda ama dadkan dadnimo ugu jirtana meesha laga saaro qorshahaas qorshe jira way mana iska indhatiri karno waana kan ay waxaasoo dhan oo aqoon-yahana waxaasoo dhan oo odayaala waxaasoo dhan oo saraakiila waxaasoo dhan oo madaxa waxaasoo dhan oo culimo ah waxaasoo dhan masaajida dhexdeedii ah ay ku dhimanayso marka arrinkanu ma aha arrin keliya qalad ama gef qofka uga dhaca diiniya keliya meesha ma aha meesha waxaa jira qorshe lagu yani lagu socdo baa jira waana dhinaca laga marka sheekh maxamed waxaan xasuustaa hargaha iyo saamaha shaamow tiyaatarkii wixii ka dhacay markay waxyaalahaas u dhacaan qof ayaga u hadlaa soo istaago wuxuu dhahaa kitaabka ilaahay baanu ka helnay arrintaan waa muqadas jannada lagu geliyaa labadii rawaxdana wayba kasii horeeyaan dadka kuwaanuna gaalay ahaayeen hargaha iyo saamaha caruur soomaaliyeed oo hooyooyinkood ay ku koriyeen dhuxul dayn ah oo lasoo baray wax oo maalintai islahaayeen reerkiinana waxtara idinkuna wax qabsada meydkooda laisdul saaray hooyadii iyo macalinkii iyo ardadii waxaas maxaa lagu tilmaami karaa waxaasu diin ma noqon karto waa garta sharci maaha oo caqli maaha oo insaaniyad xataa maaha waa garta ilmo yaryar arday ah dumar dad meel ku jira oo muslina kuwa suuqa wax ku iibsanaya in dhiigooda la daadiyo baan ku aadi aan khayr ka gaari khayr laguma gaaro taas waa gartay waxaa jirta dadka qaarkood say mararka qaarkood yidhaahdeen waxyaalahan isqarxiska oo weliba dhaawaca iyo dhimashada foosha xun keensada oo dadka ka argagixiya waxay ka mid yihiin nidaam lagula dagaalamayo dadku inay diintooda ay maxay u arkaan diin raxmad badan oo wanaagsan ilaahayna nebi maxamed markuu soo diray sala allahu caleyh wasalam waxa uu yihi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin suura alambiya aayadeeda 70 iyo 107 barnaamijyada wade maasha allah aayadihii namaradoodii waad xifdisay idinkaan ka bartay arrin fiican wey allah ku xifdiyo allah ku barakeeyo waa sax saad u sheegtay ilaahay subxaanahu watacaala diintan waa diin raxma wey xataa gaalkan marka lala dagaalamayo waxaa la rabaa in uu islaam soo galo inuu islaamka soo galo ayaana muslimiintu ka jecel yihiin inuu dhinto oo nabigeena alayh slat slam ilaahay subxaana watacala wuxuu noo sheegay lacalaka baaqicu nafsaka anlaa yakunuu mu'miniin wuxuu naftiisa ay la dhiban tahay o la haminayo naftiisa inuu ugu siganaya inay soo islaami waayaan markii ay dhibeen oo la yihi buurta aan ku rognano wuxuu yihi maya waa diiday nabigu calayhi salaatu wasalaam marka diintan waa diin raxmada ah tasarufaadkan iyo camalkan oo kalena wuu suurad xumeeyey islaamka oo dhib weyn buu u geystay sumcadiisa inuu xumeeyo oo dadka muslimiinta loo arko inay yihiin dad dhiigii caba oo aan naxariis lahayn aan waxba ilmo xeerin oo aan oday xeerin nabigu alay slat slam markuu ciidan dirayo wuxuu oran jiray laa taqtuluu shaykhan kabiira laa taqtuluu طiflan laa taqtulu imra'atan haweeney ha dilinina nin sheekha oo da-a ha dilinina qof dumara ha dilinina ilmo yar ha dilinina nin meel ku cibaadeysanaya gaal weye ogowya maaha muslim meel ku cibaadeysanaya masaajid ku jira gaal weye ku jira soomacadiisa oo halkaas iska fulo isagoo aan dagaalka idinkula jirin ha dilina ma ujeedaa marka diinteena waa diin sidaas wanaaga wejigaa wanaagsan leh wey maasha allah waxaan doonayay inaan ogaano diintan inay diin raxmad tahay isdil iyo isqalasho aysan ahayn mar kasta oo qaraxyo ay dhacaan dunida reer galbeedku waxay u saarayaan diinta islaamka ayagoo ugu duurxulaya in nebi maxamed uu ahaa mid dhiigii caba balse aanu ku maqalnay qowluhu tacaala siduu sheikhu noogu tafsiirayba inuu ahaa insaanka ilaahay soo diray qofka ugu raxmada badnaa walidaalika waxaan halkan ka qirayaa inuu yahay nebigii u dambeeyo ilaah soo diray dabadiina uusan nebi dambe soo bixi dooninin
sala allahu caleyh wasalam towxiidkan ilahay baan ugu manaystay waa hagaag dib waxaan ugu noqonaynaa khadka teleefonada iyo qeybtiinii dadkana daawanaya soo dhawaada hallo asalaamu calaykum calaykum asalaam soo dhawow sheikh magaca iga gaabine calaykum asalaam walaal soo dhawow cami magaca faysal baa la yidhaha assalaamu calaykum wacalaykum asalaam faysal maxaad doonaysaa inaad tiraahdid walaal waxaan doonayaa inaan idhaahdo horta nimanka culamada waan salaamaya adiga iyo culamada waan salaamaya waa gartay walaal waxaan doonayaa inaan dhaho nimanka al-shabaab la yidhaahdo waa niman khawaarij ka soo jeeda marna ma yeelayaan inay hadafkooda ka tagaan marka waxa weeye in laga jihaado in culamada noo cadeeyaan oo la jihaado nafi maal looga horo laga jihaado inay noo cadeeyaan baa rabnaa ma garata waa gartay inta aan lala jihaadin ma kula tahay in la furo albaabo wadahadal ah oo lagu daalo oo habeen iyo maalin loo soo jeedo oo lagu celceliyo ilama aha marna waxay yeelayaan maaha waa niman cali baa waa khawaarij marka maadaama ay khawaarij yihiinna faysal walaal waa ku maqlaya nimanku waa khawaarij asal khawaarij bay kasoo jeedaan marka dagaalka lagula jira al-shabaab adugu ma waxaad u aragtaa mid fardacayna mise mid farta kifaaya faysal buu ahaa waxaan rabin inaan ku weydiiyay hadduu fardacan yahay goormaad ka qayb gelaysa laakiin qaadkii waa kaa gohay dhinaca kale asalaamu calaykum halo soo dhawow sheekh magaca walaalow magacayga cabdiraxmaan wey maasha allah ahlan wasahlan cabdiraxmaan labaad maxaad doonaysaa inaad tirahdisa barnaamijka hore ma la socotay waan nala socday waan daawanayay marka waxaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo wadaadka inaan weydiiyo insha allah haddii ogolaato tafadal soo dhawow sheekh hadday mawduuca la xidhiidho sina mawduucu la xiriirtaa sina waxa weeye waxaan umalaynayaa inay mawduuca ka janjeerto waxaan jeclahay sheekha inaan weydiiyo maadaama wadaadkii ugu weynaa sheekh cabdiqaadir nuur faarax ee lagu dilay garoowe uu booskaas ka baxay sheikhu ma tegi karaa wadankii oo wadaadkaas booskiisii ma bedeli karaa waxa weeye siduu howlihii u hayay uu qabto waxa weeye nin miisaaniyad weyn ku leh waxa weeye meesha ka baxay marka ma bedeli karaa oo ma tegi karaa waxa weeye booskiisi ma buuxin karaa saashasan jahayna weydiyo waa gartay waa hagaag insha allahu tacaala waan weydiin doonaa sheekh maxamed idriis waxaan jeclahay dadweynaha soomaaliyeed inay ku ekaadaan mawduucan ka hadlayno oo ah maxaa al-shabaab nabadda u diidan ma dhibay tabanayaanba mise sida shuuku u sheegayba ra'yiga alqaacida ay ku salaysan tahay baa waxay tahay nabadba inaan la helinin oo dunidu ay noqoto midaan kala dambeyn lahayn oo dhiigu daadanayo waxaa dhowaan nagu soo foodle waraysi aanu la yeelanay qeybtiisii labaad sheekh umar isagoo ku sugan dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi waxaan kaloo cajalad kasoo qabanay waraysi ah sheekh maxamed ibraahim shakuul cajaladaasu ilaa haatan waa inoo suurtageli lahayd inaanu daarno laakiin insha allahu tacala hadday inoo suurta gasho waraysi aada iyo aada u qiimo badan oo xasaasiya halkaa ku jira inaanu idinla wadaagnaan jecel lahay waxaa kaloo nagu soo foodla deeq darajo insha allahu tacaala balse khadka telefonka asalaamu calaykum waraxmatullah halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam walaal soo dhawo walaal magaca walaal khadiijo daahir ahlan wasahlan khadiijo barnaamijka waa la socotay dabcan haa waa la socdaa t v-ga gadaashaada ka baxay maad iska baktiisa waanu ku dawaqaynaya waan baktiyey anigaa wada baktiyey kulligiis ahlan wasahlan way cabdixaafid ahlan wasahlan cabdixaafid ahlan wasahlan walaal soo dhawo waan ku salaamay adiga shuyuukhda sharafta leh barnaamijka kasoo qayb gashay waanu kaa qaadnay soo dhawo maxaad doonaysaa inaad tirahda khadiijo walaal khadiija la dhahaa waxaan kasoo hadlayaa denmark walaal waxaan doonayaa in aan tacsi gaadhsiiyo dadka soomaaliyeed sheekhyada sharaftali ka baxeen la dilay dadka maadariska ah ee khawaajiifta ah ee maxaan ku idhaahdaa khaajimiinta ah ee ummadii marisay ee aan sheekh iyo ilmo yar iyo qof dumara iyo midna dhaafayn wax lala geli karo negotiation ma jiraan cabdixaafidow khadiija aada iyo aad baad umahadsan tahay khayr allah ku siiyo hadalkaaga qiirada leh dhinaca kale telefonka asalaamu calaykum taasi waxay ahayd khadiija from denmark dhinaca kale halo
waxaan jeclahay control roomka numberka inuu naga gudbiyo qof kale noo gudbiyo insha allahu tacaala hallo hallo hagaag qofkaas uu imaqli waayey hallo soo dhawo walaal magaca asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullah iyo gudbo walaalo halo cami waa lagu gudbiyey magaca magacaygu waxaa layidhaha cabdiraxmaan soo dhawo cabdiraxmaan maxaad doonaysaa inaad tirahdid walaal waxaan oran lahaa wax kale mooyaane barnaamijkan maanta la dhegeysanayo wuxuu ahaa barnaamij al-shabaab iyo maaragtay dowladda dadka soomaaliyeed sidii meel isugu soo fariisin lahaa sidii nabad waarta loo heli lahaa qariga ugu horreeyay oo askartii hore al-shabaab ka mid marka laakiin ka tooba keeno waxaasoo dhan fahmay aqligana wax walbo maaragtay banaadinka waxyaabaha qaladka aqligaaba kuu sheegayo in dadka weli waxaan ku jiray xilligii ugu horreysay oo la oran jiray danada yaa u socdo haddoo dadkoo wada fahmin inta badane waa ku maqlaa cabdiraxmaan marka adoo soo khulaaseynaya maxaad doonaysaa inaad tirahdid alxaabti hadda waxaan oran lahaa aniga waxaan oran feri cabdiraxmaan yar in wacdigan aad sii wadaan arrintan barnaamijkan baraarujintan oo aad doonaysaan inaad mara dad kusoo jiidaan aad baa umahadsan tahay cabdiraxmaan adna haddaad t v-ga iska naaqiso waanu sii wadi lahay khayr allah ku siiyo dhinaca kale asalaamu calaykum وعليكم السلام ولا عبد حافظ وكم السلام وعبد الله لندن اهلا وسهلا عبد الله laba qodob baan lahaa inaan barnaamijkayga si fiican baan ula socday horta fursad qaaliya baa 2009 naga luntay markii culimadu ay muqdisho ku shireen sida loo socotaan waxaan filayaa markii sida Sheekh Bashiir sheegay ay nimanka odayaasha oo dhalinyarada ay diideen dhexaadintii iyo sulxii culimadu ay wadeen خير الله جي علماء ويد ذلك لكن قوان وذا جيره وقيسيني ولا ما يسن قادم واقرت waxaan soconaa culimada Sacuudiga oo hadda inta badan culimada Soomaalida soo baray oo lagu soo bartay 19 go'aan bay ka qaateen oo inay tahay fi'a daalla oo lunta bay ku tilmaameen umaduna uga digeen culimada iyadu go'aanka ma qaadan geesinimada lahaa 2009 haddana dawaatan umadoo dhan ay baraaska bixinayeen culimaduna hadda ay ugu horeeyaan waa gartay arinta labaad oo muhiimka ah oo la yaab kale waxa weeyaan dawladda Soomaaliya dawladaha soo horay nimankan waa niman sharci ah oo hadda 10 qodob oo Sheekh Maxamed sheegay uu asiibay waan la qabaa laakiin haddana sida madaxweynuhu qodobadiisa dhowr jeer ku sheegay waa saddex group oo kala duwan qolobasi nimanka koorka ah oo de shisheeyaha ama afkaarta ajnabiga oo qaldan wato laba group oo kala ku jiro waxaan ogsoonahay in rag dhalinyaro u badan yihiin oo de wax garaadkoodu waa ama aqli loo ama odayaal waaweyn oo wax garta ama soo shaqeeyay dawladnimo ama ciidamo inay ku yar yihiin waa si ra'yigaagu yahay waa sida ila tahay laakiin de waa sida ayagu ay sheeganayaan dadka hadla inta badan u badan yihiin waa gartay waxa ka muuqata marka waxa suuragal ah gruubyada labada oo kale inaysan ku jirin dad cilmi diineed ama cilmi maadi oo ku filan ee barnaamijka inta maskaxdooda ku maalaan ay uga soo noqdaan inaysan jirin ama ay yar yihiin ama xataa duruufta iyo colaadda iyo habadda ay ku dhex jiraan aysan u saamaxayn dawladdu marka waxay moodaa inay qaadatay barnaamijkii adduunka u jeediyo ay horta marka koowaad hubka hadhigaan nin dagaalamaya hubka inuu dhigo way adkaanaysaa waxaa moodaa marka labada fursad labada guri wadamada dawladdu dayacayso inaysan dhihin hubka dhige ay wasiilo kasta oo nimanka hubka looga dhigi karo haddii ahaa lahayd in wadahadal lala galo in dhaqaalo lagu kala iibiyo maxaan ku yiraahdaa in ayaga dhexdooda la kala gado intaas waxaan maleynayaa in hadee shuhadaadkuna waa fadhiya diiniyan ay wax ku jira ay yaraanayso waa gartay maslaxad ummaduna ay ku jirto marka inagoo fikir ahaan ula dagaalamayno oo xoog ahaan ula dagaalamayno haddana caqliga in laga taga maaha nimanku waa niman cadow balaaya wasiilo kastoo marka suuragala inaan laga tegin weeyaan oo aan la dhihin hubka hadhigaan waa gartay marka waxaad leedahay cabdiraxmaan wada hadalkuna ha socdo hawlahan kalena ha wada socdaan marka labada dhinacba hawsha ha laga wado
dowladnimo waa sidaa dowladnimo ma aha one strategy iyo one way ma aha sideedu marka waxaad leedahay institution dowladnimo marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa wasaa'il tira badan ay isticmaasho oo nimanka hawka ay u dhigtay ku kala furfurto aad baad umahadsan tahay intaana dib ugu noqonin sheekh maxamed idriis ba laba qof oo kale aan fursad siiya asalaamu calaykum khadka kale وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhowo walal magaca عبد الصديق محمد كاسو وعي دنمارك مقرد soo dhowow waxaan kaloo si gooniga kugu soo dhaweynayaa wax kaa agsharqamaya habeeraati ma jirta marka si toosan isku maqlay waxaan dhihi lahaa marka hore horta midda ah in culimada la yiraahdo way gaabiyeen iyo saas bay noqdeen horta waa ra'yi qaldan ma fahamtay waagar waxaan arrintaas u leeyahay in culimada haddii hadda ay micnaha isku duubni la yimaadaan oo qoryaha ayagana ay qaataan waxaan ka qaadanaynaa fikirka hadda aan ka qaadanay dhalinyarada dagaalamaysa waa garta marka sidaas darteed waxaa nala habboon culimada booska hadda ay taagan yihiin yaysan sii dhaafin idaacadaha ha soo fadhiisteen ha ka hadleen xaqa siday hore u sheegeen hadda ninka caalimkaa dhinacaaga fadhiya dhowr muxaadaro uu soo jeediyey hadda sida t v-ga markaan ka arkay beri dhaweyd intaas ka badan inay u gudbaan waaba qalada waa gartay aad bad shacabka soomaaliyeed waxaan fari lahaa marka aha markooda horeba ninka 4 wiil dhalay 2 wiil shabaab ugu jirto sidaan ognaa anaga adaa saas dowladda ugu jirta midna waxay ahayd nin iska xamaasho marka shacabka soomaaliyeed waalidiinta waxaan dhihi lahaa inta wadanka gudihiisa ku nool in ay wiilashooda inta shabaab ku jirta ma inta banaanka joogta kii shabaab ku jira waaba tegay soo noqon maayo kaasi laakiin midka banaanka jooga in ay kula taliyaan in uu dowladda taageero ma garata laakiin waxaanu ognahay dowladdu maalin walba inay soo bandhigto dad al-shabaab kasoo goostay oo dhalinyaro ah oo doonaya inay dadkooda iyo dalkooda dib ugu soo noqdaan marka maxaad u leedahay adigu soo noqon maayaan oo waa tageen inta yar oo idaacadaha inta lasoo saaro oo sawirada laga soo qaado wax micnaha ma sameynayaan ma garata cabdi xafiid macno weyn bay xaqiiqatan samaynaysaa maxaa yeelay haddii maalinba 10 iyo 20 iyo 5 ay soo goostato cido hari mayso waad mahadsan tahay saaxiib dhinaca kale telefonka asalaamu calaykum خاطر كحيل السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. أهلا وسهلا صاحب سولو. هلو. هلو. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. برادة عبد الحفيد وك سلامي أديك شيخة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مقا عمي. نقعي واحد هذا عبد الفتاح. سولو عبد الفتاح ما حد دوني سنة هذه. أولا waxaan doonayaa in waxay tahay nimankan walaalaheena iyo kuwa dawladda labadaba horta waxa dhimanaya waa wiil Soomaaliyeed iyo hooyo Soomaaliyeed iyo odo Soomaaliyeed waayo horta waxa dhimanaya kulay waa garad horta muhiimaddu waxay ku jirtaa maxaa noqdana oo nolol ku heli karnaa adduunyadii weyna nacday meel kasta oo ku dhiman daa sameeyeen midda kale waxay tahay wadaadada in la hadlo horta way fiican tahay dialogue horta wuu fiican yahay laakiin midda kale waxaan ilaa wadaadada maxay ama dawladda hadday qaldanta dawladda may dhahaan waxaanad ku qaldantihiin haddii al-shabaab uu qaldan yahay al-shabaab waxaana ku qaldan tihiin because dadkii Soomaalidu way waasheen midda kale anu waxaan horta ka soo horjeedaa dad ama maqaaxi fadhiya ama dad wax baranaya in la laayo bini'aadanimadu ma qabto wargaalada in la dilo diinta islaamka ma qabto marka waxaan qabaa wadaadada khayr allaha siiyo way dadaaleen meeshan ilmihii wax ku barayaan dhulkii wax ku barayaan wadaadada iyo dadkii aqoonta la horta maba la deynayo wadaadkuna waa sheego waxaan waa program dhisan waa gartay marka adigu maxaad xal u aragtaa maadaama aad tahay nin dhalinyaro oo maxay tahay dalkiisii aan joogin anigu waxaan xal u arkaa ay tahay wadaadada inay ka soo saaraan mawduuc la raaco waxaan u malaynayaa barnaamijka lama socono culimaauldiinka intaanu wareysanay iyo inta ku fikriga meel kastay joogaan waxay isku waafaqeen inay waxaanu aysan diin ahayn ilaahay raalli ka ahayn diintaanu raxmad iyo naxariis ay leedahay xataa gaalka aan diinteena rumaysnayn in loo naxariista inay bannaan tahay marka maxay kaloo doonaysaa inay qabtaan oo bayaan kasoo saaraan bayaanka ay kasoo saarayaan waxay tahay fawdada yani haddii waxaani waa xaaraan ay dhaheen wadaadada waxay tahay yani waxa
ku xigo waxay tahay shacabku inay tallaabo ka qaadaan midda kale dhalinyarada ha loo furo in la yidhaha gacmo furan ha lagu soo dhaweeyo wax kale la gacan bira la iskaga qabto because dadka way dhinteen way baabeen cabdifataax aad baa umahadsan tahay saaxiib warkaaga waa cad yahay sheekh maxamed idriis waxaad dhegeystay walaalo fara badan kuwo kalena khadkay ku jiraan maxaad ku biiranaysaa intaas hey waa xalku intii aynu sheegnay baad moodaa dadka ra'yigooda inuu kusoo ururayo waxa kanu wuxuu isugu jiraa fikir qaldamay oo lacday iyo qorshe maaragtay aan doonihin ummadan jiritaankeeda marka fikir baa lagu saxaa qorshahana xoog baa la iskaga qabtaa labadaas soo wada jira iyuunbaa lagaga hortegi karaa ummadda soomaaliyeed dowlad ahaan culimo ahaan shacab ahaan waa inay labadaba u diyaar garoobaan fikir ahaanna waa in loo waajahaa oo fikirka la saxaa taasna culimada ayaa dee mas-uuliyaddeeda inta badan qaadanaysa soo ma garan oo inay fikirkan saxaan qaldan inxiraaf ku jira dhiigga muslimku inaanu ballaanay ummadda soomaaliyeed inay ama ummadda muslimka inay fawdo noqoto oo dowlad lahaan ahaato inaanay sharci ahayn inaanay diin ahayn khilaafka iyo tafaruqa inaanu diin ahayn ummadda gaale in loo loogo dhulkeedii oo ay qaran la-aan ahaato inaanay sharci ahayn inaanay diin iyo caqli midna toonna ahayn yani inay diinta waxaa kaloo inaanu jihaad ahayn inay bayaaniyaan culimadu inxiraafka qaladka meesha ku jira oo fikir ahaan loo waajaho walidaalika meelihii ay ka dhacday dhibaatadan oo kaleeto fikirkaas waa lagu waajahay masalan dowladda sacuudiga waxaan xusuusanaa markii sagaashameeyadii arrinkan dilalka iyo qarxinta magaalooyin la qarxiyo meelo la qarxiyo waxaas ay bilaabatay labadaba waa lagu waajahay labadaas qudood in fikir ahaan loo saxo lijaan baa samaysantay dadkooda aqbalaya xiwaar aqbali kara fikir aqbali kara in wax ka qaldan yihiin oo ay ku qalluucan yihiin wadahadal ogol in laga saxo xiwaar lala sameeyo ogol in xiwaar loola galo iyo wadahadal lala galo loo sheego loo bayaaniyo aan laga daalin la cadeeyo meediyada iyo meel walbaba la adeegsado dhanka kalena waxa qorshaha ah oo isagoo aan xawaar shaqadiis ahayn ay ka tahay ka go-an tahay qorshe ah dil oo baabi'i ummadan iyay jirine taasna in markaa xoog la iskaga qabto labadaasoo wada jira ayaa loo baahan yahay waana ila tahay aniga sidii cabdulla yiri haddayana waana ishaaray oo waxyaalaha sababaha keenaya dowladaha laftigooda soo maraya inaanay xor u ahayn inay ama mufaawadaad geli karaan ama wadahadal geli karaan waayo waan ognahay tabardarada jirta saydarada iyo awoodda jirta walidaalika waa inaan iyaga laftigoodu geesiyen ahaadaan dowladaha soomaaliyeed iyo maamuladu oo yihiin dad yani wadankooda iyo dadkooda maxayo go-aankooda bal cala alaqal u xor noqda cidday doonaan inay la hadlaan la hadli karaan sheekh maxamed waxaad sheegtay fikri iyo qorshe ma la oran karaa dhalinyaradu fikirkii bay qaateen qorshuhu dadku kasoo fulaya maba ogabay waxa lagu sireeyo dadkooda ku leynaya ma oga dhalinyaradu akiid wey arrinkaas dadkan dhalinyarada ah oo maaragtay arrinkan iyagu ansaarta isaga ah iyagu haddee shicaarka guud oo ah waa la jihaadayaa dadkii muslimiinta ahaa soo uma jeedid dhibaatada soo gaaray dalkoodii baa lasoo galay intaasay u gaarsiisan tahay qofkii yiraahda war waxaa waxbaa ka horeeya oo sida culimadu leedahay ah waxaa la oranaya jihaadkii buu diiday maca salaama intaasa ugu filan sidaan sheegnana jihaadkii ma diidaniye waxaan diidanahay sida aada wax u xukumayso oo jihaadka aad u wadan diidan yani fiqhigiisa iyo axkaamtiisa meesha la dhigayaa lagugu diidan yahay laguguma diidanaa jihaadka cidina ma diidan qofkii jihaadka diida waa gaal buu noqonaya maxaa dhacay aayadaha ugu fara badan iyo suuradaha ugu fara badan ilaahay subxana watacaala uu jihaad kaga hadlaya ummadan cizigeedii iyo sharafteedii wey difaaceedii wey waxay cizi ku yeelan lahayd wey wax ilaahay amray waa waajib waajibaadka ka mid a laakiin sidee goorma la fulinayaa goormu waajib noqonaya goormaan waajib noqonayn goormuu fard cayn yahay goormuu fard kifaaye yahay ummaddu goormay awoodi kartaa goormaanay awoodi karin ilan waxaad ogaataa qaacido wey dadkao dhan badan de waa inay ogaadaan dhalinyaradaas laftigooda waa inay ogaadaan takaaliifta ilaahayna faray oo dhan oo jihaadku ka mid yahay salaada zakada soonka xajka arkaanta islaamka iyo jihaadkaba waxay ku xiran tahay istitaaca
kulligeed laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha laa yukalifu allahu nafsan ilaa ma aataaha fattaquu llaha ma staطactum intii aa kartaan waay anigu haddaanan istaaga salaadda inaan ku tukado aanan karin ilaa wa ilaa istaag may oranaysa haddaa xanuunsanahay ma khasab baa inaa tiraahdo istaag maya sake haddaanan xoola haddaanan haysan anaa awoodin sake inaan bixiyo sakana waa igu waajibtay waaqiimu salaata wa aatu zakaata taale sake bixi maya oranaysa maba hayste iguma waajibin xajkii man istataaca ilayhi sabiilan waay ya arkaanta islaamku kamid yahay marka jihaadku kama weynaa salaada iyo zakada iyo soonka iyo xajka arkaan islaamku kama weynaa waajib waajibaadka kamida wey macquul maaha marka nin dhulka yaal oo fadhiya oo aan istaagi karin sida salaada ninka u fadhiya inaad tirahdo ilaa wa ilaa dagaal gal muxuu dagaal galaa maba ku waajibine awooddeedaba ma haye waxaan xasuustaa sheikh 2006kii xilligii maxaakimta ayaa waxaan ka daawaday news nin soomaaliya wariyaa uu soo duubay wuxuu wareystay nin dhalinyarada kamid a wuxuuna ku yiri waxaanu soconaynaa ilaa iyo alask basaboorna ma hayso $10 ma hayso alasku tegaya markii reer galbeedku ay maqlaan alaskan tegaya bamna uu ku xiran yahay ama hub uu haysto ma keeni kartaa waxyaalahaas oo kale in dadkeena iyo dalkeena lagu xasuuqo lagu soo dhunto oo sabab ay u noqoto dhulkeena dad ay qalaad ku yimaadaan waa waxyaalaha aan leenahay way qaldan tahay jihaadka si qalada u fahamtay ku garta xataa jihaadka yaa ayuha aladiina aamanuu qaatilu aladiina yaluunakum min alkufaar kuwa kusoo xiga xataa gaalada haddii aad kuwa kusoo xiga inaad brazil u gudubto ama alaska u gudubto waxaa ka horeeya kuwa kugu soo xiga waa haddii markaa awooddeeda leedahay oo shuruudeedii aada dhamaysato midda kale yacni adduunkao dhan inaad hal mar la wada colowdo sida hadda ama qaacida ama shabaab ay inagu ina leeyihin ama dhallinyaradeena laga dhaadhicinayo xaggee diinta kaga taal nebigu calayhi salatu wasalaam qabaa'ilka qaarna wuu la heshiin jiray qaarna wuu la dagaalami jiray qaarna waraaqo iyo rasaa'il buu u diri jiray oo hadiyadoodu aqbali jiray soo ma ogid maariya oo nebiga calayhi salatu wasalaam u dhashay wiilkiisa ibraahim hadiyad inay tahay muqowqis uu usoo diray nebiga calayhi salatu wasalaam oo weliba aakhiru cumrihi nebiga calayhi salatu wasalaam sanadihii u dambeeyey ah soo ma ogid caamul wufuud yacni ka horreeyey muqowqis waa nin gaala waa nin kristaana qibtiya masr buu xukumaa nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu u diray risaalo soo islaam ciidan markaa uma dirin dacwadii islaamku gaarsiinay wax maraaxiishu way kala horeysaa marka ninkiina hadiyad buu usoo diray nebiga calayhi salatu wasalaam wargaalka hadiyadiisa xagga igaga tuura ma dhihin wuu qaatay leannahu kaana yaqbalu lhadiya hadyigiisa kamid ah marka adiga cariirigan aada isgelisay oo ah adduunkao dhan inaad la dagaalamto kuwa aan kula dagaalsanayn iyo kuwa kula dagaalsanba gaaladu kulligeed laysad calaa daraja waaxida mid aan isagu kula dagaalamayn maxaad ula dagaalamayn ya baarak allahu fiik sheekh marka waxaasoo dhan baa jihaadka la xiriira oo siyaasa sharciya wax la yidhaahda la xiriirta waxa marka culimada ay ka hadlayaan arrimahaas waay waa arinka ah war xukunkan xagee aayadan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu alyahuuda waannasaara awliyaa haddaan anigu qoladan la xiriiro oo safaarad u dirsado waman yatawalahu minkum fainahu minhum ya ma noqonayso marka waxyaala waa insaan loo fahmo marka qaladkaas dhalinyaradeenii oon dee aqoon badan lahayn laga dhaadhiciyey waxaa la oranayaa fiiri cabdilxafiid wuxuu la hadlay qole hebel oo gaalo ah gaaladaasuna xagga muslimiintii kale ay ku dilaysaa iskama laazimayso waxaa dhici karta iyagoo muslimiin kale la dagaalamaya adigu ina xiriir la yeelato taasna waxaa ku tusinaysaa aayadda suurat alanfaal aayadaha u dambeeya ilahi subxana wa tacala muxuu leeyahay alla subxaana wa tacaala wain istansaruukum fi diini facalaykum annasru yani dad walaalihiina hadday gargaar idinka dalbadaan oo kaalmo xataa militariga idinka dalbadaan kaalmaya ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum miithaaq qola idinka iyo heshiis idinka dhexeysa oo golo gaalo weye heshiis baa idinka dhexeeya iyagii markaa dagaal kuma qaadi kartid ile heshiis baa idinka dhexeeya ma jebin kartid cahdiga ma jebin kartid cahdiga ma jebin kartid muslimiin kaloo baa jira ee la dagaalameen dagaal ka dhexeeya marka waxaasoo dhan xiriir walba hadiyad walba salaan walba booqasho walba ma noqoto muwaalaadkii gaalnimada ahayd ilaahay wuxuu noo sheegay nabiga alayh salat salaam adeerkiis inuu jeclaa adeerkiisna waa mushrik inaka laa tahdi man axbabta qur-aanka ku taal inaka laa tahdi man axbabta
cidaad jeceshahay jacaylkaas muxuu yahay jacaylka gaalnimada ahaba waman yatawalahu minkum fainahu minhum miya iyagu kamid yahay miya may waa jacayl kalgacal qaraabanimo iyo khayrka uu la doonayay buu nabigu u jecla inaka laa tahdi man axbabta idaad jeceshahay oo inay soo hanuunto aad jeceshahay xaaskaaga ahlu kitaab bay noqon kartaa yahuudiyad ama nasraaniyad bay noqon kartaa alyawma uxila lakum aطayibaat waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilu lakum وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهم مركا محصنات داس جعشة نكي حاس كيسا إلهي آيات كالو حلية وجعل بينكم مودة ورحمة كالقعل فكدحي كالقعل كاس مكي ديني هذا مايا مركا وحيالها صدم إن لكلا قري أباهيه وحي أباهيه إن لكلا صارو waxaasna waa waxa waajibka culimadu inay kala saarto marka soo kaco aan duulno kaliya ma aha waxa weeye xagee duulaanku ku socda goorma la duulaya lama diidana aayadaha lama diidana waxaan waa waajib cidii kartaa ma jirto jihaadku islaamku kamid yahay bal dirwatu sanam alislam islaamku meesha ugu sharaf badan waaye laakiin wuxuu leeyahay shuruud wuxuu leeyahay waajibaad wuxuu leeyahay aadaab buu leeyahay marka taasaa axkaamta oo dhan ku dabaqmaysa marka waxaa dhallinyaradeena iyo dadkeenuba inay fahmaan ay loo baahan yahay arrimahaas weeye baaraka allahu fiik jazaak allahu khayr sheekh waa kuusoo noqonaya waxaan jeclahay in ay naloo diyaariya cajaladii deeq darajo inta aanan sheekh umaltiisa daawanin balse marka hore khadka taleefonka baan rabaa inaan dhowr qof siiyo ilaa 18 qof gaarsiiyo fadlan iska gaabiya shaashada naga daawanaysaan si aan isku maqalno assalaamu calaykum calaykum assalaam cabdi xaafid may maqashaa si saani cami soo dhawo magacaayo walaale duraan shruuca la dhahaa adiga marka hore adiga cabdi xaafida iyo sheekh maxamed idris waa salaamay aad iyo aad baan kuu soo dhaweynayaa mudana duraan soo dhawow waanu kaa qaadnayna kuna cabdi xaafidow waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo inkastoo culimmadu mar walba ay tahay halbowlaheena loo baahan yahay inay waxyaabihii dhiban nooga digaan haddana waxaan rabaa inaan weydiiyo muddo hadda laga joogo 3 sano sheekh maxamed idris iyo sheekh mustafa iyo culimo fara badan waxay muqtamar ku qabteen magaalada hays xaafadda hays masjidka ku yaala anigu goobjoog baan u ahaa xilligaas iyada ah maalin friday ama jimcaha la bilaabay waxayna dhammaatay maalin axada maalintii jimcada ahayd baan waxaan ku bilaabay su-aal inay culimmadu iga jawaabaan su-aashaasi waxay ahayd waxaan culimmada ka codsaday maadaama soomaaliya masiibo adag ay kusoo dhacday waagii hore dagaal oogayaasha waa noo digi jirteen waana noo sheegi jirteen wixii dhibaato ah oo qaldan iyo wixii in laga hara u baahan laakiin muddooyinkan dambe oo xagga dagaalka diiniga uu bilowday waxaan culimmada ku yidhi waad ka aamusteen oo waxaad moodaa arrintaasi ayadaa in aad wax raalli oo kale ka tihiin waxaan weydiiyey culimmada friday aan ku bilaabay waxaad noo sheegtaan dagaalkan al-shabaab iyo dowladda xilligaas sheekh shariif baa jirtay ka dhexeeya oo dad muslina ah oo walaalo ah muxuu yahay waxa diintu ay ka qabtaa dagaalkaas maxaase maadaama aad culimo tihiin oo aad culimadeeni tihiin ummadda soomaaliya aad u sheegaysaan noogana digaysaan maalintii fridaydii culimmada waxay iga codsatay in laga jawaabi doono su-aashaasi berrita oo sabtiya berritidii sabtida ahayd baa la gaaray berritidii sabtida ahayd baan la soo fariistay su-aashii sidii oo kale aan u weydiiyey waxay iigu yidhaahdeen uu kor joogaa hadda waxay iigu yidhaahdeen axaddaan kaaga jawaabi doonaa sheekh mustafa baa howlahaas aad ugu fiican oo axadda kaaga jawaabi doona axaddii baa la gaaray sheekh mustafa waa ka booday sheekh maxamed idris oo hadda kula fadhiya baa dul maray wuxuu kusoo gabagabeeyey qofkii qof muslina dila ilaahay ma ammaanin waana qaatil ka baxay diintii wax la mid ah oo waa dembi buu yidhi laakiin sidii aan u rabay inay nooga jawaabaan noogama jawaabin hadda waxaan leeyahay culimmadii soomaaliyeed waa baraarugtay way arkeen dhibaatada wixii xun iyo wixii sanba inay dadka ka reebaan ayagaa xaq u leh waxaan ka codsanaynaa sheekh maxamed idris inaad noo sheegtaan maadaama diinta aad naga badisaan annaguna ardadiinii aan nahay inaad noo sheegtaan wixii qaldan oo diinta ku laabo kasta oo la qaadan inaad dala socodsiisaan bulshadii soomaaliyeed baan nahay baaraka allahu fiika ballan insha allahu tacaala sheekh maxamed idris inaan su-aashaas weydiiyo aana maaragtay fursad aanu ku siino insha allahu tacala kaga jawaabo laakiin waa usoo noqonaya jawaabtaada aad baana telefonka kaga macelina khayr badan allah ku siiyo dhinaca kale telefonka asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawo walaal magacaa
waan dhowahay waxaa kula hadlaya ibn cabaas alqadiri. bismi illahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu. laba kelmadaan rabaa insha allahu tacaala inaan dhaho adiga iyo dayfkaaga ama adiga iyo martidaada. yaa akhi, soomaali dhibaatadan ay hadda ku jirto, dhibaatadan al-shabaab shalay maanta ummadda islaamka kuma bilaabanin. hada awalan. ثانيا اخي الكريم برنامجka dhaxan ku gaaray intaan dhageysanay iyo intii barnaamij oo TV-da Soomaaliya ka soo baxaysay ama inta al-shabaab magacooda uu ku soo biiray saaxadda ilaa dhaxdaan daa'iman eeda waxa la saaraa dadkoo dhan eeda waxay saaraan dadkaas dhalinyarta ah ama magacaas al-shabaab la baxay. laakiinse waxaan mar walba aan hindhaha ka qabsanaa aad u malaysaa inaan tixgelinaynin ama aanan isweydiinaynin dad ka warla oo kale cidda al-shabaab soo saartay iyo cidda al-shabaab samaysay. sababtoo al-shabaab waxay ku dhisan yihiin fikir ideology ah. fikrigaas ideologiga cidda qabta iyo cidda barbaarisay oo dhalinyartaas maskaxdooda ku barbaarisay oo ugu dhigtay qatliga, dhiig bixinta qof muslim ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamad rasuulullah dhahaya in ay noqoto mas'alad ilaahay subxaanahu watacaala ay ugu dhawaadaan, in looga dhigo caqiida, in looga dhigo diin. taas yaa sameeyey ma isweydini. ibn cabaasow waxaan kaloo saarayaa hadalka soo qaabinaya insha allah qaladka waxaan kaloo saarayaa iclaamkeena ama meediyadeena oo ay ka mid tahay xataa universal TV. sababtoo ah marmar waxaa dhici karta sida caawa ay u dhacday oo kale culummada fikrigaas wata iyo culummada fikrigaas dhalinyarta maskaxdooda kowdaba soo geliyo ama kusoo barbaariyey ayaga naftooda in meesha aad marti ahaan aad u keensataan oo qaatilkii iyo jallaadkii iyo daxiyadii iyo waxba aan la kala bixinin ama aan la kala saarin dadkii shalay u istoonaya oo dhalinyartan ilaahay hadduu ku roon yahay fikrigan ku biiriyey ama ilaahay hadduu kugu roon yahay diin ugu dhigay. ibn cabaas fursad baan ku siinaya. waxaan jeclahay marka koowaad inaad noo sheegtid khayr allah ku siiyo. qiiro badanna way ku haysaa, xoog baad u hadlaysaa, marka waan ku maqalnaa. take your time insha allah. waxaan rabaa cam inaad noo sheegtid cidda fikradda ku beertay ood sheegaysid marka hore inaad noo sheegtid adigu. wallahi anoon hadda shaksi aanan saminin mashaayikhda salafiyada ama mashaayikhda sacuudi arabiya wax kusoo bartay waa la yaqaanaa fikrigooda, ama mashaayikhda loo yaqaano wahaabiyada ayaga waaye dadka koowaad oo mas-uulka ka ah in fitnadan beledkeena ka socoto 20 sano ama khaasatan si gaar ahaan inkastoo aan aaminsanahay intii horeba in shaatiga keliya ay soo bedesheen oo laakiinse xaqiiqat alamr ay ahayd in hoos uu ka socday dagaal oo diineed oo la rabay keliya in mujtamaca soomaaliyeed heerka maanta uu joogo lagu gaarsiiyo seekada. laakiin shaatigaa lasoo bedeshay, mas'alo diiniyaa laga dhigay. lilasaf shacbigeenana shacbi waaci ma ahan. qof walboo meesha soo istaago oo isku tilmaama inuu sheekh yahay ama wadaad yahay ama culummada ka mid yahay in ay raacaan, ay maantana u sacbiyaan, berrina ay ka cabaadaan, aysanna ogeen inuu qofkii asaga uu yahay qofkii dhibaatada inteeda. waa gartay sheekh ibn cabaas warkaaga waa arrintaa waa fahmay. waxaan rabaa inaan kaloo ku weydiiyo adoo aada usoo koobaya. waxaad tiri barnaamijka dhexdaan kala qabsaday, taasina wax badan bay ka turjumaysaa. horudhicii barnaamijkan waxaan sheegnay inaanu isku daynay ragga ugu sarsareeya al-shabaab inaanu khadka taleefonka kula xiriirno oo waraysi ka qaadno ama dadka soomaaliyeed ay toos ola hadlaan. arrintaas way suurtageli weyday. muddo 6 jeer ka badan ayaanu isku daynay. mustaqbalka soo socda waanu isku dayeynaa. adigu haddaad taqaanid cid lala xiriira ama u hadli karta diyaar baanu nahay inaanu la hadalno. ama in halkan lasoo fariisiyo arrintaas oo arrin kale wey. saaxiib aad baad u mahadsantahay. asalaamu calaykum waraxmatullah. laba teleefon oo kale aan ku darayaa dabadeedna waxaanu daawanaynaa sheekh umal iyo deeq darajo waraysigiisii, dabadeedna sheekh maxamed idriis iyo teleefonada dib ugu noqonaynaa. halow may maqashaa? halow asalaamu calaykum. waxaa la ii sheegaya inuu qof laynka ku jira laakiin aan imaqlaynin. halow asalaamu calaykum. waa hagaag. halow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. soo dhawow sheekh. walaal waa dhawahay cabdi xafiid, waa idin salaamay. asalaamu calaykum adigii sheekha. wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. magaca walaal?
walaal axmed baa la yidhahdaa soo dhawow axmed maxaad jeceshaa inaad kaga qeyb qaadatid walaalow horta waxa waaye al-shabaab marka horta la dhahayo dhowr qofood oo fara ku tiris oo meelahaas nooga timid maahane waa dadkeena caadi ah horta soomaaliya joogi jiray culummada ku dhex juri jiray qaarkood aysan xaba aqoonin waa horta waa gartay bini aadan dhan oo nool marka lama suulin karo wadankay wax ka leeyihiin dalkay wax ka leeyihiin waa rag hadda maaragtay fikirka si qaab daran u qaatay waa gartay waxaan dhihi karaa 95% dadka al-shabaab maanta lagu magacaabayo waa dhalinyaro ay wax ay yaqaaniin oo ilaah abuurtay aysan jirin xabadna waxba ilaah abuurta ma yaqaaniin ninkaan waa iska joogi waa iska qaraabanayay waxa waaye dowlad laana dhacday axmed allah yakhaliik brother inaad tidhaahda 95% oo ayaga ka mid a waxba ma yaqaanaan waxaa kugu filan oo kale in lagu yidhaahdo adugu ma 95% baa la kulantay dabeedna halkaas unbay kaaga banjaraysaa qasadkaagu meesha yahay qac kaga sii kaasi waxa axmed 95% kii baan ka sugan aan waxba garanaynin iyo siduu kusoo ogaaday dhinaca kale taleefonka asalaamu calaykum soo dhawo walaal halo السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سولو ولا المقعة محمد بالي هذا والله waxaan kaaga mahad celinayaa inaan soo wacday xilligan meel kastoo dunida ka joogtid maxaad doonaysaa inaad tiraahdo maxamed waxaan in leeyahay warta waa mahadsantihiin adiga iyo shiikha tan labaad markaan sheegto arrintan ku saabsan ciladan hadda ka tagin bal maxaa la yidhahdaa al-shabaab ay hadda haysato dhibaatada yani soomaaliya horta waa mid horta soo jireen ah waxaana qabaabla in la helo horta feker ah in laisu soo dhawaado horta way adkaanaysaa leanno nimanka la yidhahdo al-shabaab waxa ay rumaysan yihiin qofku haddii uu isagu fikir ahaan uu ku aaminsan inaa horta gaal tahay ama aaba tahayba nin ka fog diinta islaamka waa caqabad baan umalaynayaa sida lagu heli karo horta isu soo dhawaansho maxaad xal u aragtaa marka maxamed xal horta waxaan u arkaa horta ma nimanka xukuma iyagu ah maamulada nimanka haystaay mise nimanka yaryar oo da-da yarta oo la khalday nimanka da-da yarta la khalday waxaan aaminsanahay in dawladda ay u hesho mashruuca dibi u hagaajin ah oo loo furo iskuulla ama meelo kaamam ah recreation ah si looga soo bal diinta islaamka loo diro waxyaabo badan la tusiyo bal horta bal inay arkaan bal fikirka ay ka qabaan islaamku maxamed maysan kula ahayn maxamed iskuullada intaan loo furin maysan kula ahayn marka hore ayagu inay xabadda dhigaan ay kusoo biiraan dadkooda iyo dalkooda diintii iyo maxay tahay dowladda cusub oo dhalatayna ay gacan siiyaan horta taasi ma dhacayso leanno waxaysan ku dhacaynin qofku caqabada ugu horeysa sida hadda uu sheekh bashiir sidee iskuul loogu furayaa haddaysan al-shabaab ka soo tegin shabaabna loo tegi karin loo sheegay waxa lagu yidhahdo anagu in loo sheego xataa la wada hadlo qofku hadduusan aaminsan asuusan taladana goxna shaqi maxamedow maxamed helaysa mugta wax hal ama caqabad hadhow uma imaanayso laakiinse waxaan qabaa fikrad ahaan ninka ilaahay baan qur-aankiisa ku sheegay qofkii naf badbaadiya laannu wuxuu la mid yahay isaga oo badbaadiyay jamiican ummadda oo dhan waxa weeyaan maxamed brother please maxamed khayr allah ku siiye brother time badan baan ku siiyey warkaagu waa cad yahay aayaddaad akhrinaysid waxay ku jirtaa suuratu maa'ida aayaddeeda 32 weeyaan fakaanama qatala naasa jamiican waman axyaaha fakaanama axya naasa jamiican aad baad u mahadsan tahay waxaan ku weydiiyey intaad hadlayso maqli weyday haddeen al-shabaab loo tegi karin dhallinyaradiina ay kasoo tegeen see dowladda ugu tiraahdaa iskuulaha loo furo laakiin waad imaqli weyday xoog baad u hadlaysay mahadsanid maxamed bal laba qof oo kale aan fursad siina asalaamu calaykum hallo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته sheekh soo daayo magaca وأنو مقعي هو مصطفى ولال أهلا وسهلا أدي الشيخ وسلامتين متكلم يوم قدر أنا هو وهجاي
de culimada marka hore culimada laftigooda waa inay u midaysan yihiin marka la leeyahay culimada Soomaaliyeed oo dhami culimada Soomaaliyeed meel walba way joogaan waxyaabo badanna waa inay ka midaysnaadaan sida maxay oo kale وهاجاك مصطفى خدك لو حيقة السلام عليكم السلام عليكم هلو waxaan jeclahay maxamed biibaya macalin aaji inaad noo soo daysaan waraysigii deeq darajo qaybtiisii labaad inta aanan u gudbinin qaybtii labaad ee sheekh umal waraysigiisa xasaasiga ah iyo siduu u arko ummadan Soomaaliyeed masiirkeedu meesha uu yahay iyo wanaageeda balse teleefanadan hormarinayna cabaar salaamu calaykum halo assalaamu calaykum cabdixafiid waa maqashaan si toos ah cami magaca cabdi bile waagaag cabdi bile waa gartay waa dheeraysaa malaha waa ku salaamay cabdixafiid adiga iyo sheekh maxamed idriis haya cabdi bile ilaahay ajir xasan ka siiyo barnaamijka fiican oo quruxda badan oo soo bandhigteen وياك الشيخ سلوه marka haddii aan ra'yigay ka dhiibto cabdixafiid barnaamijkan shabaab oo dadka ku leenayo waa barnaamij oo firfiyana oo la geliyey dhalinyarada oo samaynayso waa gartay marka waxaa leedahay wax dibadda nooga yimid dibadda ayuu nooga yimid muddo dheerna soo socday ayadoo wax shabaab aysan jirin baan aniga nimankaas la kulmay oo aan ku arkay Kenya oo ay dhaheen haddaan kun qof gaarno dadka seef ayaa ku musliminayna maxaan muslimiin ay yiraahdeen dadka Soomaalida inay seef ku musliminaa rabnaa waxaan jeclahay intaan cabdi bilasi wadan waxaan xasuustaa sheekh dad wacdinayay baa wuxuu yiri markuu nin gaala diinta soo galay buu yiri marka waxa lagu yiri haddii aad diinta soo gashid waa in lagu xalaaleeyo ama lagu gudaa oo kurka lagu hordhigaa haddii aad diinta islaamka ka baxdina kurka lagu hordhigaa marka wuxuu yiri idinku marka la idin soo galana ma kan hoosaad jaraysaan marka la idin ka tagana ma kurka kala jaraysaan marka waxaad leedahay seef baa iskala daalaya seef baa iskala daalaya marka culimada oo sheekh maxamed idriis kamid yahay qaar Allah siiyo waana qaana sheekha Kenya waa ku kulanay iyo culimada kale ko adduunka meel kasta joogan ka wada hadleen waxa aniga ra'yiyan ila muuqdo in culimada midowdo fikirkana waxa lagu baabi'i karaa in la sameeyo wacyigelin la maxaadareeyo inta ku jirto hal mar lama wada baabi'i karo laakiin step by step ayaa dhalinyarada aqoonta fiican u leeyahay lagu soo dumi karaa ragga waaweyn oo hogaamiyaasha aan loo nasteexi karaa haddii diidaan si wada duuba ayaa la saga dhici karaan qabaanay marka waxaad leedahay haddaan ku fahmay wax allaale cid allaale ciddii hor istaagta qarannimada Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed wada jirkeeda iyo wanaageeda iyo cisigeeda iyo sharafteeda inay soo ceshato haddii nasteexo iyo wanaag lagu waayay hal iska leexiyo gacanta la isaga qabto cabdixafiid haddaan runta ka hadlo nimanka shabaab waxay ka faa'iidaysteen midnimo la-aan dadka dhex taalo dowlad la-aanta iyo culimadii oo faraha isku taagayso mataqaanaa si mataqaanaa qorada ictisaama la dhahaa al-islaaxa la dhahaa ahlusunna waljamaaca la dhahaa al-itixaada la dhahaa bal culimada saas inay fikirkooda ayagoo ummadday mas-uul ka yihiin ay ka midoobaan waxaan u malaynayaa sheekh maxamed idriis iyo culimo badan inay halkan ka sheegeen inay ka midaysan yihiin wanaagga iyo horumarka iyo tawxiidka iyo sunnada wanaagsan iyo diinta saxda in dadka loo sheego